بسم الله الرحمن الرحيم. كسر هذا برنامج كني قرمة عيارها. برنامج كان مانتا وحن كهلنا قضبير أو قبن. معلن كوحدة برشلونة. وحوش هاي نسدح كوحد وريال كل حياة. كابتن كوحدة ليفربول. وسدح كورنداع كوحدة كرسي جاي. وحو حلاح الشيء إن حلك قرنك وحوش شيء dadka raacaya ama 22 ciyaartooy ee u safraysa qadar ama wadanka qadar uu ka mid noqonaya halka ciyaaryahanka kooxda Arsenal muhiimkan waa Gabriel Jesus kulanka adag ee Anfield ka dhici doona ee dhaxmari doona Liverpool iyo Arsenal waxa leeyahay kulankaas shaki badan ku jira dad badan sugaya marka kulankaasi Gabriel Jesus dhaawac ma ku maqan yahay maxanuusan yahay علوش ما لها يا والسويدنا يا مرك هدي أنكو هالمرة أنت المعلن كوحدة ريال مدريد كارلوس أنجلوتي محاكل هذا سد هذا كلام سد هذا كوحد أولي هاي ريال كان أيها قاضية متكودا قاضية اعتمد يا كوحدة ريال يعني هجامية نحط شك قلنا يا إن ترتكو جريمبو لكن أي كم تسد هذا كوح وترتمي ريال أنجلوتي دانكو بلاونه ويا أنجلوتي دانكو بلاونه مع أنجلوتي نسيدا وكذا وجورت هوريال كإسبان وهوريال سدح كوحات أفر كوحات كده حياة أنت بدن وأنا هوريال إسكاب فضد قاب عريت كيسا إيو إن عياريان أوتجا وحكو صوب بنيجان وواح عادوا فضد إسماعيلو أنجلوتي ومعلم وين absolutely value مركا أنجلوتي ومعلم وين وخبرت له وحاو أنت بدن إسكلي حين يا إسماعيل إن ومركا فانو آدياد وأنا لقن لو يكان معلمين تا خبرة له دونيدا يجو أنت بدن إسكفوجيا جولها إلا إيجاران جوشة أيدونا يعني موياني مركز جلوتي وعن تاو أركنا كليا إني تحي نواسيو ودن دونا بندقنا أو مهاري دونا إني أوديجان تاي محيا لي سان الله سعنو نحن كل أول رسالة قاب عريد وليه وكجتابريال عياريانا دائرة هالشيء iyadoo Benzema uu ka maqan yahay Rodrigo waxa uu dhigayo caalamka la yaaban sidoo kale Vinicius Junior iyo sidoo kale ciyaaryahanka Valverde oo lagu daray ciyaaryahanka Tchouaméni oo qadka dhexe ka ciyaaraya Toni Kroos iyo sidoo kale Luka Modric wax meesha la dhigi karo absolutely value marka kooxdaas runtii waa koox han leh mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waxa laga yaabaa Ismaaciilow in championkan ay meel wanaagsan ka gaaraan ama ay qaadaanba nasiibkii waxa ugu sii daray in nasiib u yeeshaan ciyaaryahanada tayo leh oo waali ah inay daayira inay helaan in Barcelona waxa la dhigaysaa sidaan la socono marka Lewandowski loo yaqaano lambarka 9 kooxda Bayern Munich waxa daruur ka dhigaya in Spain gaar ahaan kooxda Barcelona sanado badan oo mugdi ku jirtay sanadkan ma laga yaabaa in ay noqoto horyaalka dalkaas Spain maadaama aan la socono in Real Madrid meesha ay ka marnayn wallahi dhab ahaantii Barcelona waa koox iyadu aad u adag laakiin se waxa aad iyo aad Barcelona ugu adag oo waliba imtixaan ay ka haystaan dhinaca daafaca oo waliba daafacyada duwaha iyo sidoo kale Trega inkastoo lambarka saddexaad hadda shaki uu ku jirino Alonso uu yimaaday Alonso waa difaac fiican sidoo kale Jordi Alba waa ciyaaryahan fiican laakiin daadiga ka daba timid halka ciyaaryahanka kale ee dhanka duwahana ay Bellerin iyo Sergio Roberto ay haystaan laakiin saasoo taa ciyaaryahanadii u qalmay oo waalida ah ma aha Barcelona qab ciyaareedkeedu ugu wanaagsan yahay laakiin waxay ku dhiiqadeen kulankii Bayern Munich iyaga oo waliba aad u liitay waxa keenayana wax kala ma ahan waa khibradyada ciyaaryahanada qaar haysata daayirta u badan marka ciyaaryahanadaas hadii ay koraan oo aqli la koraan oo champion qaadaan la koraan macalinka in Maxamed Rahim Kalama kooxda Bayern Munich Barcelona markay Barcelona Bayern Munich aragto baraf qorax la kala noqota Bayern Munich
afartii kun u dambeysay Bayern waa laga badiyay marka laakiin Barcelona haddii aragto way ku orkacsataa dhab ahaantii waa sax Ismaaciilow waxa weeyaan Real Madrid waa koox aad u biti badan saasoo tahay Barcelona markii ay u dhaceyso xagaagan waad ogeyd xagaagtii la soo dhaafay wixii ka dhacay iyo wixii lagu dhigay wax kale lama keenayo kubadaha tiki-takada iyo qadka dhexe oo ciyaaryahanada weyn ay u dheelhayeen kooxda Real iyo Barcelona oo daayir u dheelaysay laakiin hadda waxa waa la isla qaybsan doonaa isfogeyn ma dhici doonto El Clasico qurux badanna waa la daawan doonaa Ismaaciilow ama santa waxay Ibrahim Kama wali waxaan la socotaan barnaamijka garoomada ciyaaraha gaar ahaan shabakada Bein Sports hadda nagu soo biirtay inaad like gareyso flow gareysan ka codsanayna Kama macallinka hore kooxda Chelsea ninka wadanka Jarmalka u dhashay Thomas Tuchel loo yaqaano ama Tuchel sida loo garan og yahay waxaa leeyahay wuxuu aadayaa kooxda Bayern Munich sababaha uu aadaya iyo warar hadda soo baxay waxay sheegayaan in macallinkaasi uu si toos ah wada hadal ugu jiro kooxda Bayern Munich oo ah kooxaha ugu miisaanka culus qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Jarmalka marka maxaa soo dejiyaa leedahay Tuchel oo hadda la ceeriyay in Bayern Munich ay hor ka codsato wallahi niyow horta warkaas waxaa soo dejinaya Bayern Munich kulamadii ugu dambeeyay xaalad adag ay gashay kulan laga adkaaday kulan barbara ay gashay iyo kulamo bandhigeedu ugu dambeeyay badaninbo absolute value marka taas soo dejinaysa waana macquul in uu Tuchel qabto inkastoo aad iyo aad qaab ciyaareedkii baaska uu kooxda ka lumi karo maadaama taasi daafac dheelo u yahay walow Borussia markuu joogay difaac uusan ciyaari jirin macalinkaas waa macalin weerar horyaalka Premier League iyo xaaladda ku jirta oo taa ay u sababtay marka Thomas Tuchel waa macalin mar walba macalin dhaafay ah horyaalkii Premier League ku adkaaday inuu meel ka gaaro saasoo tahay waa dadaalay champion Chelsea waa la qaaday macalin inuu weyn yahay inuu khibrad leeyahay aan laga shakinin weeyaan Bayern Munich u baahan tahay macalinka hadda haya waa ka khibrad badan yahay 100% Tuchel loo fiiriyo absolute value Kama waxay soo tarayaa ciyaaryahanka wacdaraha ka dhigay kooxda Arsenal una dhashay wadankaasi Brazil ciyaaryahankii hore kooxda Manchester City ninka lagu magacaabo Gabriel Jesus waxaa leeyahay shaki weyn ayaa ku jira kulanka Liverpool iyo Arsenal inuu dheelo maadaama uu yahay kulankaasi kulan Arsenal muhiim uu yahay ciyaaryahankaasi Arsenal muddooyinkii ugu dambeeyay way ku dhibtoonaysay garoonka Anfield ay gool ka gaarto Arsenal shi garoonkaasi ku dhibtoonaysay maanta ma ahan Arsenal hadda joogta waa Arsenal horyaalka hogaaminaysa aan waxba laga qaban karin Liverpool shi la garanayay dadka jajabsanaysay dabcan inay ahaan filaya laakiin marka Anfield joogto Liverpool dhagali waxay la soo baxdaa laakiin Arsenal ma shareero Gabriel Jesus على الحنوم هاي ساحوا حكم غران كلا كلكاس كلكاس Gabriel Jesus wax kala ma ahan Gabriel Jesus waa indhaha iyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda Arsenal taa li ajligeeda marka wanaagsan tahay juhdi iyo dadaal badan ay u baahan tahay waa weeriyaan halistiisu ay badan tahay waa weeriyaan raacashadiisu ay badan tahay waa weeriyaan marka la eego kubadaha dhunta waa weeriyaan kubadda difaaca markuu haysto isku daya in 100% uu kubadaas ka dafo waa ciyaaryahan inta badan marka dafida ku dheereeya waa ciyaaryahan energy uu badan yahay taa ajligeeda 5 kulan ama 6 kulan ugu dambeeyay waxa uu ka qaatay 4 jaalo kulamada uu ciyaaray taa marka waxay ka dhigan tahay hadii kulanka Tottenham uu kaarka Rudiga uu qaato kulanka Liverpool oo uu maqnaan doona sida sharciga horyaalka Premier League u dhigan cabsida ugu badan waa jaalahaas mooyee caafimaadkiisu waa fiican yahay 100% waa tam marka ku dhacista ciyaaryahanada iyo dadaalka iyo juhdiga uu muujinaya Kenya marka waana laga yaabaa in kulanka Tottenham uu jaalo qaato maxay yeelay difaaciya adag oo suuragal ma tahay Arsenal inay nasiso kulankaas wallahi waa laga yaabaa inay nasiso laakiin laga ma yaabo Arsenal Liverpool wallahi waa laga yaabaa saas oo ay tahay laakiin se kooxda wax walba waxay u sameyn doontaa ayaa la leeyahay kulanka ugu horeeyay xoog saarto marka waxa mareynaa gabagabadii ciyaaryahanka kooxda Liverpool ama kabtanka kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Jordan Henderson karaamo waxa leeyahay xulka qaranka England loo qaatay sida aan ogsoonahay Henderson wuxuu kamid yahay dadka tirada 30 madax kala baxay
Henderson dictator waaye nin gabla ah waaye walow Liverpool oo nasiibka uu helay waayaha marka loo eego kabtankii hore dhiiga Steven Gerrard laakiin uu ka nasiib badan Premier League uu qaaday Champions League uu qaaday FA Cup uu qaaday Carabao Cup uu qaaday Carabao Cup uu qaaday saa ay tahay saddexdii kulan ugu dambeysay Liverpool waa maqan yahay uu ka maqnaa dhaawac kaga maqnaa Henderson xulka qaranka Ingiriiska maxay uga dhigan tahay u yeeridda kabtanka kooxda Liverpool ee looga yeeray maadaama soo wali dhaawiciisa uu ku saay kulmadii ugu dambeeyay Liverpool wallahi waxyaabo kala ma ahan Anderson ciyaaryahan khabiirad badan oo khibradiisu aad u badan tahay wax badan lagu faa'iideysan karo waa dhiirigeliye waa kabtan waa hogaamiye u qalma xulka England kabtanka marka laga soo tagana ciyaaryahanka Phillips oo Man City ay leedahay Leeds-na ka soo qaatay dhaawac ah marka ciyaaryahankaas ayaa bedel uu noqon kara ayaa leeyahay maxaa yeelay qaranku uu kaga horeeyay macalinka Southgate waa la yaabayay markuu ciyaaryahankaas uu laab ka dhigay halka uu kursiga keedka uu gelinayay ciyaaryahanka Henderson laakiin Henderson fursad weyn uu haystaa inuu mar kale taariikh sameeyo waana uu sameyn karaa hogaamiye uu noqon karaa Ismaaciilo marka waxa leedahay qaadashada uu qaat Henderson waa aragti fiican waa aragti wanaagsan aad u wanaagsan waliba أنا واسنت محمد إبراهيم كرامة وإجل قيب قادنا فلانقين برامج كان عيارها إمانتا حلقة وحنقول برامج كان قرامة محمود رسا أحبكم من دراية صاحب الغالي وحد الله نهاي سداي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يقرسان